haddaan dumarkeennu rumayn hamigeena miyaan higsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo mar waa hagahaaga dhab hooyo ku saartay mar waa mahuraanka hooyaad la wadaagto mar hiiliyo weeye haldhaa inantaada awalaal marna heegan ku hawlan dantaada assalaamu calaykum asxaabta igu xiran fawziya comedian kusoo dhawaada maqal iyo muuqaal wixii garanaya waan salaamayaa inta caafimaad qabtan waxaan u rajeynayaa caafimaad degdeg inta xanuunsan waxaan u rajeynayaa caafimaad sidoo kale maasha Allah maanta waxa martigu sidaad u arkaysiin nin mas'uul oo loo aqaano Sufyaan Afar Xaasle soo dhawow walaal ساديو ودواهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودواهي thank you very much for your invitation. maanta waxaa hal iyo laba iyo saddex leeg weydiinaya su'aalaha because way ugu badbadatay Afar Xaasle soo waxaan rabaa xagga bulshada waxay ay macnaha ay sameynayaan hadda oo aragtay social media oo la leeyahay ninka Soomaaliga romantic ma aha ninka naag kale inuu la guursado ma rabno gabdho qaarkood jiraan oo dhahayaan waan arkay oo adan in aragta laga yaabaa TikTok ka socda oo dhahayaan waxa la jiray waxaan rabnaa nin xaas la qabo ninka xaaska qabo ayaa ku dhaqi karo Absolutely. maxaa ka leedahay taas kale Well, aan ku bilaabo markii ugu horeysa anagu waxaan ahay dad Soomaaliya صح dad Islaam hadaan nahana waxaan leenahay qaacido qoom walba ama bulsho walba waxay leedahay qaacido ay raacdo صح qaacidadeena waa qaacidada Islaamka ما شاء الله bini aadamkana ruleska waxa loo sameeyay inay raacaan khaasatan diinta Islaamku waa naseexo oo wax loogu talagalay inay bulshada ilaaliso dhibaatooyinka bulshada ku jira ay ku jirto ay ka bixiso sida daraadeed Allah subhanahu wa ta'ala markuu nala hadlay quraanka soo dejiyay waxa laga bilaabay guurka inaan guursano 2 3 4 lama dhihin hal la guursado سفيان hal in la guursado waxay timid ninkii cabsanaya waa condition la keenay oo ninka fulayga ama doqonka ahi ayaa hal la yiri ha guursado سفيان sida daraadeed gabadha Soomaaliyeed ee dhiiri gelinaysa ama dhahaysa nin aniga in la guursado ma rabo si dadban ay waxay leedahay anigu waxaan rabaa kii doqonka ah oo Ilaahay uu u sheego yiri fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun aw ma malakat aymanukum ama hal xabo ama adoon xabada xataa iska daayay adoon raasada so qaacidadaas qaacida qalad weeyaan waxa saxa qaacidada islaamka ay ku saxdahay ninka ragaahay inuu ka bilaabo 2 3 ku xijiyo 4 ilaa awoodiisu laakiin conditionka ugu horeeya ee guurku waa inaan 2 ka bilowdo hadii aad tahay doqon aadan ahayn hadaa tahay qof caadi waan arkay social media gabdho badan oo dhahayo waxaan rabnaa anagu nin in la guursado ma rabno waa gabdho runtii u baahan waa gabdho yar yar dabcan waxaan aaminsanahay hadii la yiraahdo markay muddo joogaan in ay ku baraarugaan ama diinta bartaan in ay ka tanaasuli doonaan sidoo kale waxa jira wiilal sidoo kale ayaguna oranaya oo dhiirigelinaya arrintaas inkastoo nin dhiirigelinaya arrintaas uu yahay nin of course inuu jiran yahay boqolkiiba 90 u baanta because ninka ragga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku abuuray damaca inuu rabo naag iyo ka badan markaad aragtay nin rago oo dhahaya waa in hal gabar la guursado waa nin isagu jiran waa nin dhibaato haysato dhibaatadiisii marka iyo raganimo xumadiisii wuxuu rabaa inuu ku qariyo arrintaas kusuuska oo macnaha uu arrintaas u doodo mid kale in loo doodo hal naag in la guursado waa shay ka soo horjeeda diinta islaamka waa shay ka soo horjeeda nidaamka islaamka waa qofkii inuu qaatay dhaqankii westernka uu qaatana ayagii laftirkoodii oo ku qortay sharciyadooda ninku hal naag inuu guursado ma sameeyaan ayagii laftirkoodiya markay xabad qabaan 3 ama 4 saaxiibaha dhinaca ku haystaan marka Allah subhanahu wa ta'ala uma sameeyo ninka ragga inuu ku qanco ama ku ekaado hal naag marka waxa saxan gabdhaha iyo wiilasha oranaya guurka waa in la badiyo oo ma sintaas cali okay mid su'aasha labadan ku weydiina waxay tahay waxa jirta niman oo markay hal xaas ay qabaan oo isku dayay in xaaska labaad guursadaan xaaska labaad markay guursadaan ay muddo wada joogaan hadana ugu hanjabayo naag baan kula guursanaya oo okay iidan waxay dhahaysaa okay diyaar waaye Ilaahay afar buu ku baneeyay ee guurso markuu guursadana oo naagta kale uu sheekeynayo naag kale dhaxad ma qabo bahweynta kilah uu u sheegayo ayaa jirta soo kale maxaa ka dhileed well wareenta horta waxa qaladaba sideedaba gabadha islaamka ay been loo sheego dhibaatada maanta shacabkeena Soomaaliyeed ka jirta
oo keentay arrinta ah in macnaha reeruhu ay burburaan ama gabdhihii ay aamini waayeen raggii waxaa sal u ah beenta loo sheegaya gabadhii ninka raggaa waxaa loo baahan yahay inuu marka horeba uu yahay nin islaam ah oo qawaamadii ilaahay si uusan iska qaadin oo uu u sheego gabadha haddii ay ka codsato ama ay shuruud uga dhigto tiraahdo kaliga yahay la guursanin inuu u sheego arrintaas inay qalad tahay inuu samayn doono wixii Allah subxaanahu wa tacaala uu u baneeyay markuu awoodeeda yeesho micnaheedu taas wuxuu yahay waxay tahay inuu u sheego gabadhii inuusan kaligeed ku ekaanin kow markii uu guursanayo ama gabar kale uu guursanayana inuu u sheego waxaa qalada marka gabadhaada ama xaaskaaga inaad ku cabsiiso naag kale aan kula guursanaa haddayba saas tahay markii hore aad been u sheegto wey waa shay qalada waa shay aan loo baahnayn waana shay keenaya gabdhaha Soomaaliyeed in ay aaminaadii ragga ay aaminayeen ay yaraato قاعدة صحيحة وحويا وقاعدة الإسلام كا وقاعدة أنا وريت الكون هذا نهاي أنا أولو إنه مرك وجوريس قبل أشياء رنتا وحد كتير هذا ولا لي أنا جا حدي مركز شو كان سنة سو كوي تاي هدي أي كوي ديستو إن أبلغ قادو إن آدم لجورس ناكلته هأبلغ قاد رنتا أشياء markaad mid laba shukaansanayso u sheeg inaad gabar hore ku joogto inta ilmaha ku joogta mid saddexaad markaa shukaanayso sidoo kaleeto tii hore iyo tii dambe labadaba u sheeg arrintaas waxay daaweynaysaa isku dhac iyo dhibaatooyin iyo been la isku sheego mustaqbalka reerkuna wuu dhisnaanaya marka ragga sameynaya in ay qariyaan waa ragga bulshada Soomaaliyeed qaladka ka galay waa fulayin weeyaan waa kuwii Allah subhanahu wa ta'ala uu markii hore yiri waa doqonku hal haba iskaga ekaado haduusan ba sheegi karinin oo san awood u lahayn xaaskiisa hore inuu ka dhaadhiyo tadamar inuu u sheego waa ninkii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri waa doqonkii hadii uu sheego laakiin qawaam waa ma santa su'aasha saddexaad aan ku weydiinay waxay tahay Sufyaan farxaasle nin waxa jirta markuu guursado sida hadda aan ku sheegay markuu guursado ay kala tagaan ka soo qaad calafkooda u dhamaaday diintan waa taqaanta xagga diintan ka soo galahaya ma sha Allah markuu guursado way kala tageen adu waa isqalaafeen calafkooda dhamaaday gabadhu waxay ku jirtaa wax la dhahayo cadad ma laha cudda ay ku jirtaa ninkan ma loo haboon yahay haduu sameeyana oo naag hor ka guursado maxay ka tahay ma ninka cudda ma galo naagta sababta cudda loo galiyo waxa weeyaan waa in la ogaado in aysan xaamil ahayn ama uur aysan lahayn waa shay diiniya ninku cudda ma tirsado laakiin gabadhu cudda tirsado cuddadana macnaheedu waxa weeyaan in because gabadhu ayadoo uur leh lama guursan karo waa inay uurkaas dhasho ay ka baxdo ujeedada marka saas loo yiri waxa weeyaan in la ogaado inaysan uur lahayn oo caadi ay tahay waa inay dhiig hesho diinta islaamka waa saas laakiin muhiimadda ugu muhiimsan oo meesha ku jirta waxa weeyaan oo aan rabo inaan sheego calaf wax la yiraahdo ma jiraan Soomaalidu calafka si kale u taqaana qof wax walba oo qof bini'aadan uu sameeyo waa wax sabab leh sababtana qofka iskale marka macnaha in la isticmaalo calafkiya kala dhamaaday iyo calafkayga sugaaya iyo oo gabdhaha qaarkood iyo wiilasha qaarkood maanta ay ku marmarsiyo marka la weydiiyo maxaa guursan jiraan calafkaygan wali galin micnuhu saas ma calafkii bari horu galay calafna shaqo kuma laha qofku asaga go'aan ka gaaray gabadhu markii loo yimaado la shukaansado haday tiraahdo maya micnaheeda iyada diiday inay guursato wiilkii haduu raadi waayay isaga diiday inuu guursado micnaha meesha ku jira ma calafka in la sugayo calafku ma aha wax iska jira waa koos ama sabab adigu aad la timaado marka waxa fiican shacabka Soomaaliyeed daanahay inaan aqbalno sababaynta waxyaabaha nolosheena ku dhacaya oo mas'uuliyadda anagu aan qaadano meeshii aan u tiirin lahayn oo dhihi lahayn waa calafkii anagu shaqadii qabanayno oo maasanta ma sha Allah su'aasha afraad waxay tahay qabsirada maxaa ka leedahay oo dadka qarsooni ku guursanayaan iyagoo xaas kala qabo oo mid kale la qarinayo markaan afar ilmood markay dhasho banaanka u soo baxayso maxaa ka leedahay wal qabsiradu waxay u kala baxdaa labo mid waa xaraan completely waa gabadha laga qariyo ehelkeedii xaraan waa zino ku dhaca qofkaasi diinta islaamku ma ogola arrintaas qudbasirada kaleeto macnaha gabadhii ehelkeedii in la weydiiyo waligeedii in la weydiiyo si xalaal loo meeriyo laakiin dadka laga qariyo waa doqonnimo waa waxa keenay dhibaatooyinka maanta jira oo ah gabdhihii in ay ku noolaato uncertainty macnaha nolol aan xaggan aysan jirin gabdhaha Soomaaliyeed gabdha ka fiican caalamka ma jiraan markaan saas leeyahana waxaan la soo dhaqmay la soo shaqeeyay soo arkay ugu yaraan 28 wadan oo aan ku soo noolaaday in ka badan 6 bilood oo dhaqankoodii aan aqaan macnaha taas wax weeyaan gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho aad u fiican waa gabdho dun fiican leh hadii runta loo sheegana nolosha way ku raaxaystaan laakiin waxa qalada gabadhii aad qabtay in aad geliso xaalad aysan hubinin noloshaada wax ka socda arrintaasi marka midna waa xaaraan midna waa qalad oo maasanta anagu hadda barnaamijkeena soo gagaweynayno su'aashii shanaad waxaan ku weydiin lahay dadka ragga hadda oo inay guursadaan oo rabaan oo cabsanayo maxay ugu dhiirigelineed hada kaas waa midkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kitaabkiisa ku sheegay waxaan dhihi lahaa cadow intuu guulguul kaaga gooyo galitaankaaga ma gooyo macnaha taas waxa weeyaan
dhalinyaro markaa taa waxaa laga yaabaa guurka inaad ka cabsato ama gabar ahow ama wiil ahow guurku ma aha wax laga cabsado guurku waa raaxo waa macaan waa naxariis waa dhismihii wadanka waa difaacii diinteena wadanqashadii dalkeena iyo daryeelkii dadkeena waa shay runtii wanaagsan waa shay wadanka dhaqaalihiisa uu ku xiran yahay difaacii wadanka uu ku xiran yahay horumarkii bulshada ay ku xiran tahay waa shay ay ku xiran tahay raaxadii nolosha tusaale aan ku siiyo maalan waxaad aragtay gabdho badan oo maanta meelaha cilaajka markaa tagtid boqolkiiba 99 waxaa jooga oo la daaweynayo waa gabdho yaryar oo gaaray guurkii hase yeeshee waqtigii guurkii ka daahay waxay la xanuunsadeen because of waxaysan helin wixii loogu talagalay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay gabadhu markay qaan gaarto inay guursato haddii guurso weysana waxa ninkii naagtaba haddii guurso weysana waxa ka imaanaya cudurro ama jirka ah ama psychology marka gabadhu inay guurka ka daahdo ama wiilku guurka ka daaho ka sokow in aysan raaxadii gafeen waxa uu imaanaya cudurro kale oo fara badan waxa wanaagsan marka sidii Allah subhanahu wa ta'ala uu amray gabadhu markay qaan gaarto in loo guuriyo lagu dardargeliyo loo macaaneeyo guurka wiilkuna markuu qaan gaaro inuu isku dayo inuu guursado sida macaan waa sidaas ninka dhalinyarada cabsaneen waxaan dhihi lahayn ha ka cabsanin guurku wax laga cabsado ma maasha Allah asxaabta maqlisiina ka cabsan waxay guursan rabo anoo kula kaftamayo Sufyaan jecel ma jira yes jacayl waa jira absolutely ما شاء الله أصحاب أنت سكست جبيننا وأنيجا فوزي كوميديان أنت كنت توعان مركلة إن شاء الله سعفيان وأسلوب ذي جوجنا إلى هذا نفط نقسمه ومسؤول سرع هل إلا محدي لهذا أو كويري أقول إلى باي باي أصحابته وحنا إلى شعب الصوماليات كنتي مهم نوع إن كن بيسكرينو نولشنا دين الإسلام dadka macnaha ama gabdhaha ama ragga dhahaya waa in hala guursado waxaad ogaataa markaad ereygaas dhahaysid inaad ka soo horjeedid aayadda quraanka ah Allah subhanahu wa ta'ala uu ku yiri fankihu ma taaba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' haddii laakiin aad doqon tahay hal xabo gabadha Soomaaliyeed ee dhahaysa ninka waxaan rabaa kaliya in la guursado waxaan u sheegaynaa in ay dooratay kii doqonka ahaa doqonna wax la doorto maaha marka waxaad doorataa ragga ama diyaarka waa inay guursadaan ama hore u soo guursaday ninkaas ku dhaqi kara waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantahay thank you bye bye